wardegdega ciidankii dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidan kale oo ka tirsan kuwa dowladda Puntland ayaa ku dagaalamaya duleedka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in halkaas uu ka socdo daryan culus laakiin la yaabku wuxuu yahay in ciidankii Puntland guutooyin ka tirsanaa oo laba aha ay markaas isku dhiibeen ciidanka PSF ee ku sugan agagaarka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug sidee wax u dhaceen waxaan ku hayaa xog iyo macluumaad aan inaba caadi ahayn waxa soo baxaya faahfaahino iyo warar culus oo aan inaba caadi ahayn ciidankii danab oo diyaaradaha markaasi lagu daabulayay ama ciidankii danab ee qaybta Puntland waxay taageereen PSF waxayna u digeen danigii dagaalka u soo diray ayayba duulaan kala hortageen waxa leeyahay halka majeertaanku ay ku jabeen waxaana ka soo gaaray dhibaato weyn xalkeeda muxuu yahay waxaan ku hayaa tafaasiil iyo xog macluumaad cajiib ah wato oo soo baxaya xitaa Jubaland war culus ayay ka soo saartay xiisada Puntland ka taagan ee u dhaxaysa maamulka Dani iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyadoo oo taageero u muujisay maamulka ay walaalaha yihiin ee Puntland warka Jubaland ka soo baxay waa ku hayaa sidoo kale waxaan mowduucyadeenan ku eegaynaa muxuu yahay mashruuca bangiga adduunka bixinayo ee laga reebay maamulka waqooyi bari Soomaaliya waqooyi bari waxa ku socda baa la yiri wax u muuqda in laga dagaalamayo xagga isirka oo aad markaasi nacayb loogu muujinayo wararkaas oo dhan ayaan eegaynaa aragtada noore muuqaalka like saar siina share garee waa mahadsantahay waxaan ku bilaabayaa wararka ka imaanaya duleedka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxay leeyihiin dagaalo ayaa halkaas ka bilowday waxayna dagaaladan u dhaxeeyaan ciidan ka tirsan kuwa daacadda u ah Saciid Cabdullaahi Dani iyo ciidan kale oo ka amar qaata dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ciidanka sida gaarka u tababaran ee Commandos-ka Danab ee Puntland oo war-saxaafeed soo saaray ayaa si adag ugu digay madaxweynaha maamulkaas Saciid Cabdullaahi Dani waxaana ay ku sheegeen in xaaladda cakirmaysa ee Puntland iyo dhaqdhaqaaqyada jiraanba isaga uu qaadayo mas'uuliyadooda sida ay ku hanjabeen saraakiisha iyo ciidamada Danab ee Puntland taageersanaa laakiin hadda dhinaca dowladda federaalka u soo goostay ciidamadan uu hogaamiyay qaarkood General Takar ayaa taageera ama waxa taageerta dowladda federaalka waxayna garab istaag u muujiyeen ciidamada PSF ee dhawaan daraawiishta ahaa ee markaasi isdhiibay waa daraawiishtii PSF ku biirtay ee la qarameeyay ee dhinaca Dani safkiisa ah ka soo baxday war-saxaafeedka ciidanka Danab ayaa lagu sheegay in Saciid Dani uu dagaal sokeeye ka horanayo gudaha Puntland isla markaana uu adeegsanayo ciidamada maamulkaasi sifa qaldan taasina aanay ahayn wax la aqbali karo sida ay ku doodayaan saraakiishan ma jirto cid Puntland kaga duushay dibadda khilaafka jira waa mid salka ku haya khilaafaad siyaasadeed oo u dhaxeeya dad reer Puntland waxa la isku hayo waa hogaaminta markaasi talis ama hogaaminta talisnimada iyo boobka qoyska Saciid Dani ayay yiraahdeen saraakiisha qaar oo si hordhaca warbaahinta ula hadashay markii hore Puntland way mideysneed cudud ayay lahayd odayaasheeda dhaqanka siyaasiyiinteeda dhalinyaradeeda dhammaantood waxay diyaar u ahaayeen in la iska celiyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo kooxdiisa waxa ay wadaana si cad loo diido laakiin hadda waxa muuqanaysa intaas daaqada ay ka baxday waxaana la leeyahay Saciid Dani iyo ragga saaxiibadii ah way ku jabeen wayna ku hungoobeen damacoodii ahaa in ay xajistaan Puntland isla markaana ay barida dhulka ugu dhuftaan Xasan Sheikh Maxamuud iyo damaciisa hadda waxa soconaya baa leeyahay in Xasan Sheikh uu ka dhex kaluumaysto deegaanada maamulkaas isla markaana Puntland hadda ay wajahayso dagaalo magaalada Gaalkacyo duleedkeeda ciidan ayaa isku risaasay leeyahay oo dagaal culus ayaa ka qarxay waxaana la ogeyn sida xaalka uu sii noqon doono maxay kula tahay Puntland iska difaaci doonta Xasan Sheikh Maxamuud mise Xasan ayaa wixii uu ka sameeyay halka la yiraahdo markaasi baydhabo oo kale ka sameyn doono oo ka adkaan doono sidii raxaweynta oo kale miyay majeertaanka iyo daarood kuwa noqon doonaan mise way isdifaaci doonaan waa la isweydiinaya aragtidaada nooreeb muuqaalka like saar saaxiibadaana usii share garee waa mahadsantahay saaxiib muuqaalkan ila daawo runtii waxaa sharaf weyn ah shirkan
lagu maamuusayo haweenweynaha Puntland inaan maanta ka soo qayb galo. waxaan aad uga mahadcelinayaa gabdhihii kala duwanaa ee ka soo shaqeeyay dhammaan horumarka maanta ee Puntland ay tiigsanayso, gaar ahaan wasaaradda oo runtii ay joogaan wasiiradii hore ee soo maray. waxaan rabaa si gaar ah inaan u xuso Caasho Geelle, Seynab Ugaas Yaasiin, Maryan iyo dhammaan wasiiradii kaleeto iyo gabdhihii haldoorka sida Jamiilo oo ka soo qayb gashay. dhammaantiinba waxaan ku faraxsanahay inaad isugu wada timaadeen sidii aad u asteyn lahaydeen qodobada shirkiinu uu ku saabsan yahay oo muddada 3 maalmood inii socon doona, kaasoo aan rajaynayo horumarkii ballaarnaa ee socday inuu halkaa ka sii ambaqaadi doono. ma rabo inaan aada u faahfaahiyo dowrka haweenka, maxaa yeelay cid uu ka qarsoon yahay ma jirto, waana saldhigga bulsho kasta oo adduunka ku nool. waxaan rabnaa keenna gaarka ah runtii waxaa aad loogu nuxnuxsaday baahida loo qabo dowrka ka muuqashada haweenka Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya, dhismaha bulshada Soomaaliyeed iyo hogaaminta dowladnimo ee dalkan inay qaybtooda ka qaybtaan. sidaad ogtihiin, hogaaminta bulshadu marka laga tago siyaasadda oo madaxa u sarreeya ah waxay leedahay qaybo muhiim ah oo runtii aan hadda muddadii u dambeysay horumar ballaaran laga sameynayo. tusaalaha ugu fiican waa ka qaybgalka dhinaca ciidamada, gaar ahaan ciidanka booliiska oo runtii gabdhihii muddadii dambe ku soo biirayay isbeddel weyn iyo horumar dhinaca amniga ay soo kordhiyeen. waxay noqdeen taliyaal hoggaanada ciidankay ka qayb noqdeen, saldhigyaday waxay ka noqdeen taliyaal, xarumaha ugu muhiimsan iyo qaybaha dambibaariday qayb ka noqdeen. waxaa sidoo kale aada u soo kobcaya gabdhaha xeer ilaalinta ah ee ku howlan arrimaha cadaaladda iyo uqareemidda. runtii isbedeladaas waa isbedello ka dhex muuqan doona hogaaminta bulshada oo aan rajaynayo in iyagana qaybaha kaleeto laga arki doono. dabcan meelaha ugu muhiimsan oo aada uga muuqdaan waa dhinaca wax soo saarka, xafiisyada kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha kale ee ku howlan waxuqabadka bulshada oo ugu muhiimsan tahay macalinimada, caafimaadka, arrimaha bulshada sida tooska u qabta. waxaan u baahannahay maxaynu ka bedelnaa hogaaminteena. dabcan bulsho soo kabanaysaan nahay, bulsho weli dowladnimadeedu ay marayso meelihii ugu adadkaa baynu nahay. in badan maadaama bulshadeenu bulsho qabiil ku dhisan ay tahay, arrimaha ku saabsan colaadaha iyo bulshada dhexdeeda dagaalada ka dhex dhacaya, maadaama hooyooyinka iyo gabdhuhu ay yihiin dad nabdeed, inta badan shidada waa looga fura dhuudhuuban yahay. laakiin waxaan rabnaa bulsho xasilan inaan helno oo ay fursad u helaan inay hogaamintooda muuqato. waxaan ku darsan lahaa shirkan inaad xoogga saartaan dhinaca kobaca dhaqaalaha iyo ganacsiga oo aan ogtihiin dumarkeenu inay aada ugu badan yihiin, laakiin waxay aada ugu badan yihiin goobaha ganacsiga horumar badan kama muuqdo. waxaynu u baahannahay qaabka loo ganacsado gabdhaheen inay wax ka bedelaan. suuqyadeenu inay noqdaan suuqyada caalamiga ah oo meelaha kale ka jira suuqyo soo jiita bulshada. waxyaabo badan oo ay dhici karto in dhaqaaluhu uu ku xiran yahayna hay-ado badan oo sida hadda ii sheegeen bangiga amal oo halka jooga oo qayb ka ah dadka halka qaybta ka ah, waxay ii sheegeen inay diyaar u leeyihiin in ay deyman aan dulsaar lahayn inay siiyaan ay ku kobcinayaan. marka waxaynu u baahannahay maadaama bangiyadii diyaar leeyihiin, dowladduna inay arrintaa xoogga saarto. ganacsi fara badan oo gabdho leeyihiin oo muuqaaladii lagu yaqaanay muuqaalka hore ka duwan, hadduu yahay meesha hilibka qurxoon meeshii hore, hadday tahay meesha qudaarta ka qudboon, hadday tahay meesha caanaha lagu gado, hadday tahay dhammaan adduunyada oo dhan waxaas way wada leeyihiin. laakiin habka loo qado iyo habkaan u gadno
waxaad moodaa habkeenu weli inuu casri ahayn waa meelaha aan isleeyahay gabdhuhu hadday xoogga saaraan isbeddel muuqdaa bulshaduna arki lahayd dalkana isbeddel baa ku dhici lahaa dhinaca tacliinta aad bay uga muuqdaan laakiin waxaan jeclaan lahaa dhinaca ciidamada gaar ahaan ciidamada booliiska kuwa ciidanka badda ciidamada kaleeto inay aada uga sii muuqdaan iyo ciidamada difaaca oo runtii gabdho fara badan oo halyeeye ay ku jiraan dabcan ma rabo inaan ka hor dhaco wixii aad ka hadli lahaydeen oo idinkaan inii daynayaa laakiin waxaan inii sheegayaa dowlad ahaan inay ka go-an tahay wixii karaankeenna iyo kartida dowladda ay leedahay awooddeeda intay rabto hala aagto inaan la galab taagannahay bulshadan oo aasaas ah u tihiin sidii wax looga bedeli lahaa habka aada u shaqaysaan dabcan weli caqabadda reeraha iyo matalaadda reerka ragga waa caqabad jirta oo u baahan in runtii ahamiyaddeeda sidii wax looga qaban lahaa la siiyo dabcan dowladdu bulshaday u dhalatay bulshadaana saameyn ku yeelatay waxa ugu weyn ay ka shaqaysana waa xasilooni inay heshana waxa weeye bulshadii waxa ay raalli ku tahay mararka qaarkood inay ku hogaamiso caqabadaas wayna haysataa bareesharka reeraha ka imaanaya iyo reerka u haysta cidda matasha keliya inuu ragga yahay waa caqabad dhaqan oo bulshadeenna haysata oo talo u baahan taladaas talo aad keli ku noqon kartaan maaha laakiin waxaan laga rabaa inaad dadaal u gashaan inay bulshadu inay aqbasho inaad hogaamisaan bulshadu inayna hogaamiso meelaha aniga aan u arko fursadda waxa weeye ciidanka booliiska degmo kasta iyo meel kasta waxaa ku yaalla saldhigyo waa meelaha asaasiga ah haddaad gabdho kartila noqotaan saldhigyada madax ka noqotaan bulshadu wayna aaminaysaa meelaha aan aada u arko waxaa ka mid ah arrimaha dimuqraadiyeynta oo ah golayaasha degaanka maayarada waa inaad taarget saartaan soo socda haddaa idinku kala qaybsataan oo gabadhiina muuqata aydan wax tarin way adkaanaysaa inay soo baxdo sidoo kale gabdho keliya raggii gabdhaha ma dooran karaan waxaa loo baahan yahay gabdho ay ku qancaan bulshada degaankaas joogta inay soo baxaan oo ragga iyo dumarkuba ay wada doortaan sida hadda aada ragga keliya loo wada doorto arrintaas waxay u baahan tahay inaad wakti gelisaan gaar ahaan shirkan meelaha ah ihtimaamka siin doontaan ay ahaataan sideedaba bulsho waxaa lagu betelaa waa kalsoonidaasu inaan dhisnaan u baahan nahay annaga siyaasadeenna wasaaraddaa hogaaminaysa waxna ka hagran mayno laakiin waxaan u baahan nahay qaab ka duwan qaabkii horeeto waxaan u baahan nahay gabdhuhu ruuxaddeeda fagaarayaasha aqoonta iyo meelaha muhiimka inay qayb ka noqdaan hadda meediyaha aada bay u galeen laakiin meediyaha waxay ka galeen dhinaca entertainmentiga saan filayo halkaasi u bateen waxaan u baahan nahay dhinaca bulshada advocacygeeda iyo ka hadalka xaqiiqada inay ka hadlaan marka kolley waa wada hadli doontaan waana iswaraysan doontaan waxaan rajaynayaa wax idinka ini bedelaa idinka inaga abuurmi karaan annagu gacan baa inagu siin karnaa laakiin waxaan dareemayaa dhinaciina ruuxaddiinna dareenkaas dabcan maanta waa isu timaadeen oo runtii shirkan sida la sheegay waa shirarka naadirka oo sidaan u qabsooma shirar kale waa ka qayb galay laakiin shirar aqooneed oo la fogarayo mawaadiic runtii uma badnaan jirin marka waxaan rajaynayaa isbeddelkaas idinka inaga imaanaya annagan inaan gacan inagu siino arrimaha ku saabsan amniga runtii qaybta ugu weyn idinkaa qaata sidoo kale amni daradana qayb baa ka qaadataan oo raggan dagaalama idinkaa guubaabiye marka taa ruuxaddeeda talay u baahan tahay marka waxaan u baahan nahay mid walba oo khariban oo dalkan rabo amnigiisa inuu khalkhalgeliyo ama siyaasaddiisa deganaantiisa uu khalkhalgeliyo gabdhaha durbaanka u tamaayo iyada ruuxaddeeda waa wax jiro wey marka waxaan qabaa maadaama aada matalaysaan bulshada kuwii u nuglaa oo dumarka iyo carruurta ah mar walba slogankiinu ha nahaado inaad nabadda ka shaqaysaan idinku inaad noqotaan garsoorayaal intaad la kala safan lahaydeen oo kan khaldan aada qaban kartaan waan hubaa haddii haween codkoodu midaysan yahay la helo cid ka weynaan karta male cid kasta iyagaa qabanaya marka waxaan rajaynayaa cidda nabadda gununta
guntida inaa idinku noqotaan cidda horumarka samaysa inaa idinku noqotaan raggu dhaqan ahaan waxaa lagu yaqaanaa ragga Soomaaliyeed dumarkooda aad bay u ixtiraamaan wayna kuga dambeeyaan marka ay guubaabiyaan marka waxaan rajaynayaa inay idinka inaga soo bixi doonto qorshihii raggan Soomaaliyeed ee mashaakilka hadda hormuudka u ah sida xal ugu raadin lahayd arrimaha hadda aad lagu celceliyo oo gudniinka oo runtii aniga aan aad mararka qaarkood u fahmin maxaa yeelay waxa hadda gabdhaha gudaayana waa hooyooyin waxa ugu weyn oo lagu joojin kara xeer maahan waa wacyigelin saa anigu isleeyahay laakiin hay-adaha kan mar walba ka sheekeynaya waxaan isleeyahay tala kale u baahan tahay arrintaas haddaa idinku iska daysaan xeerba uma baahnid yaa gacmahayna qaqabanayo dhahay gabdhihiina guda ma cid baana dhigi karta horta haddaa go-aansateen inay waxa kan fiicnayn anu waxaan qabaa go-aan qaata oo wacyigeliya haddaa xataa miigu xoogaa ku haro oo magaalooyinka aad ka gudubtaan waa stage fiican soo maa xeerarka aniga iiga muhiimsan kaas waxa weeye xeerarka kufsiga in la adkeeyo maxaa yeelay kan gabdhaha hadday isgudaan iyo hadday isdeeyaan iyagay horta u taalla laakiin gabdhahan la khasbayo oo la kufsanayo way waxa mushkiladda wada ani waxaan odhan lahaa xeerkaasaa u baahan in la adkeeyo laga wada shaqeeyo horta wasiirka cadaaladana waa joogaa xeerka u baahan ciqaabta adag in la mariyo waa raggan horarka oo gabdhihii dhibaataynaya marka waxaan isleeyahay wixii xeer u baahan iyo qawaaniin adagna aan ka wada shaqayno wixii wacyigelin iyo wax ka bedel u baahanna waxaan u baahannahay wacyigelinta aan ku xalinno wixii dambi ciqaabeed aan isdhiraahno xeerarka ciqaabta in la adkeeyo u baahan dhinac kale dad kobca ayaan nahay runtii dowladnimada Soomaaliya weli culays baa ka jira qawaaniintu xataa haddii la ansixiyo ku dhaqankeedu weli ma xoog badna awoodaha dowladdeenu maalinta ka sii dambaysa culaysyada soo fuulaya aad bay u badanayaan markaan runta inii sheego arrin sahlan Soomaaliya kuma soo socoto dadkii waxaad moodaa inay caniid noqdeen oo dowlad diidka soo badanayso waxaa sii kala furfurmaya habka dowladnimadu dalka u dhisay khilaafaadka siyaasiga sii xoogaysanaya qabaa'ilkii kalsoonidoodii waa sii dhumaysa dad baa waxay ka shaqaynayaan si ay dana gaar u helaan inay qabaa'ilkii cuqdado kala geliyaan ciidamo u kala sameeyaan soohdimo adag u kala yeelaan caqabadahaas waa caqabado bulshadeenna haysata iyo dowladnimadeenna runtii Puntland waxay kaga duwan tahay qaybo badan oo Soomaaliyeed waa bulsho isku duuban waa bulsho midaysan waa bulsho jecel dowladnimada intaas waa inta lagu dhaqdhaqaaqayo udub dhaxaadka ugu weyn oo Puntland ka dhiman laadahay mar walba waa haweenkeeda haddii ay caqabado soo wajahaan cidda u taagan waa iyaga hadday abaara yimaadaan hadday colaado yimaadaan hadday caqabado kaleeto oo meel kasta ka dhalatay cidda ugu horeysa ee qaylinaysa ee ka shaqaynaysa waa iyaga runtii dowladdu idinkaas saldhig u ah shuruuc hadday noqon lahayd iyo qodobo kaleeto oo dowladda siyaasaadkeeda wax ka beddelayaba dowladdan waxaan diyaar u nahay wax kasta oo inaga soo baxa hadday u tahay in sharci lagu meelmariyo hadday tahay in siyaasad loo sameeyo lagu meelmariyo iyo hadday tahay awood kale oo la geliyaba intaba waxaan rajaynayaa kaalinta dowladdan awooddeeda inkastoo kooban tahay inaan waxba la hagranayn